العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما صليت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رضي الله عن مشايخنا أجمعين ونفعنا بهم إن شاء الله تعالى. maanta oo taariikhdu ay tahay kowda bisha koobaad 1432 hijriyada oo ku aadan 8 bisha 12 2010. waxaan jecelnahay inaan halkan kusoo gudbino kitaab cilmiga tajwiidka ku saabsan oo aan ka akhrino ilaahay idankiisa oo ka bilowno maanta oo maalintu ay tahay maalin Arbaca. kitaabkaas oo lagu magacaabo al-mulakhas al-mufiid fi cilmi tajwiid. kitaabkaas waxaa si toos ah hadda looga dhageysanayaa oo si mubaashara khadka ugu jira oo dhageysanaya meelo fara badan oo adduunka kamid ah. waxaa hadda si toos ah looga dhageysanayaa casharka Soomaaliya, America, Kenya iyo Canada iyo meelo badan oo kala duwan. waxaa laga dhageysan karaa oo qofkii u baahda uu kala soo xiriiri karaa conference call-ka numberkiisu yahay 712 432 3 taswiirkiisuna uu yahay 312 591. halkaas waa lagala soo xiriiri karaa. haddana si toos ah ayaa loo dhageysanaya insha allahu tacaala. kitaabkaas baan gudageli doonaa ilaahay idankiisa. ilaahayna waxaan ka rajayneynaa inuu sida uu noogu bilaabay uu noogu dhamaystiro, noogu anfaco. sababta waxa weeye cilmigan waxa uu ku saabsan yahay wax qiimo badan ilaa qur-aanka oo wax kasta ugu fadli badan ayuu ku saabsan yahay. shayguna waxa ku tacalluqo oo xiriirka la leeyahay ay sharaftiisa noqonaysaa. sida marka qofka muslimka ah waajib ay ugu tahay inuu qur-aanka barto oo ku camal falo oo macnihiisa u dabaqo, ayaa waxa waajibka lafdigiisana inuu dabaqo. ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanka oo mujawada oo hagaagsan oo qurxoon ayaa jibriil u keenay asagoo mujawada oo aad u qurux badan oo u dhamaystiran buu asxaabta u gudbiyey radiyallahu canhum. asxaabtana taabiciintii ay u gudbiyeen ilaa anagana ay naga soo gaarsiin culimadeenii ilaahay khayran ku jazeeyay. marka tajwiidkan waxaan ka faa'iideynaa qur-aanka markaad akhrisanaysid baad si sax u akhrinaysaa. haddaad iska horleysid adoon axkaamteeda hagaajin ajar aad iska heshay iska daaya waxaa dhici karta dambi inuu kaasoo gaaro. kitaabkan kitaab aad u muhiim ah weeye. waa kitaab jaamacadaha adduunka lagu daraaseeyo. waxaa la yidhahdaa al-mulakhas al-mufiid fi cilmi tajwiid. waa kitaab oo qoray in muddo fara badan khibrad iyo aqoon dheeraada kulaha ku dhex jiray cilmiga qur-aanka sida uu sharxi doono oo la yidhaha maxamed asheekh maxamed axmed macbad raximahullah. bismi illaahi arraxmaani arraxiim. bismi illahi ilaahay magaciisii baan ku bilaabayaa alihi arraxmaani naxariista badnaa alihi arraxiimi naxariista badnaa. almuqadimatu haadihi midaanu almuqadimatu hordhac wey. almuqadima waa midii kasoo horeysay maqsuudka, ama almuqadamatu midii lasoo hormariyey weeye oo maqsuudka laga hormariyey. kitaabka maqsuudkiisu wuxuu ka bilaaban doonaa marka uu yidhaahdo aadaabu tilaawa iyo muqadamaatu cilmi tajwiid. meelahaasuu kasii bilaaban doonaa. laakiin hordhac baa laga maarmaana inuu qofku u sameeyo waxa uu qorahayo. hordhacaas oo kaga sheekeynahayo waxa uu qorahayo sida ay yihiin sababuhu kusoo bartay iyo xaalkus buu ahaa. alxamdu xamdi dhammaanti lilahi ilaahay buu sugnaaday alladii allahaasoo mana nicmeeyey calaynaa korkeena noogu nicmeeyey bixifdi lqur'aani qur-aanka la xafididiisa iyo watacalumi axkaami axkaami lqur'aani qur-aanka xugumadiisa la barashadeeda iyo watacliimiha axkaamtaas la barideedii. marka hore bisinka ayuu la yimid
bisinka inaad wax kasta oo muhiima markaad rabto inaad samayso ama aad ku hadasho aad ku bilowdaa waa wax sharci ah ilaahay baa looga dayanaya subxaanahu watacaala qur-aankiisa bisinka ku bilowday kadib haddana xamdi ku xijiyey nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam amar buu ku baxshay oo wuxuu yidhi kullu amrin dii baalin laa yubda fiihi bismi illaahi fahuwa abtar arrin kasta oo ahmiyad leh oo aan magacaada lagu bilaaban waa wax dabagaan oo baraka aan lahayn xadiid kale wuxuu tilmaamay arrin kasta oo muhiim ah oo ilaahay xamdigiisa aan lagu bilaabin waa abtar ajam aqdac waa wax dabago-an oo aan baraka lahayn sidaa daraaddeed wuu shiiku bisinka ku bilowday xamdiga haddana ku xijiyey alxamdu xamdi dhamaantiis lilahi ilaahay buu usugnaaday maxad oo dhan ilaahay baa iskale oo mutaystay alladii allahaasoo mana nicmeeyey calaynaa korkeena noogu nicmeeyey bixifdi lqur'aani qur'aanka la xafididiisii inaan qur'aanka xafidno iyo watacalumi axkaami alqur'aani qur'aanka xugumadiisa oo kitaabka uu sharxi doona barashadeeda iyo watacliimiha lasii barideeda markaad barato kadib dadka usii gudbiso iyo wasiyaaqatiha axkaamtaas la dhalaalinteedii iyo watashiiliha axkaamtaas la fududeynteedii liraagibiina dadka jecel loo fududeeyo oo loo dhalaaliyo fiiha axkaamta dhexdeeda dadka jecel siyaaqadu waxa weeye in la sahlo shayga oo wax qurux badan oo qofku qaadan karo laga soo dhigo oo lasoo jilciyo oo la fududeeyo laisku xijiyo oo la sahlo wey wasalaatu naxariisiyo wasalaamu nabadgeliyo calaa khayri khalqillah ilahay makhluuqiisa midkii ugu khayrka badnaa korkiisa ha ahaadeen cala lidlaaqi duuduub ahaan iyo gedi ahaanna ugu fadliga badnaa kadib markuu ilaahay bisinkiisii iyo xamdigiisii sheegay oo ilaahay subxaanahu watacaala xaqiisii oofiyey oo qeyb kamida uu ka sheegay buu haddana nabiga ku saliyay sala allahu alayhi wasalam waana arrinta la doonayo markaad ilaahay khaaliqaha ku abuurtay aad ku xamdiso inaad nebi maxamed ku saliso oo salaamto sala allahu alayhi wasalam waayo qur-aanka ilahay arrinkan ugu amray teeda kale khayr kasta iyo barwaaqo kasta iyo nicmo kasta o aan gaarnay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ilahay sabab uga dhigay marka qofka shayga sababka uga ahna wuxuu kaaga baahan yahay laftigiisu inaad abaalgudid calal idlaaqi duuduub ahaanna ilaahay makhluuqiisa ugu khayrka badan oo makhluuqa waxa ilaahay abuuray dhan nabi maxamed baa ugu fadli badan sayidinaa boqorkeenii ahaa wa nabiyinaa nabigeenii ahaa waxaabibinaa midkaan jeclaynay ahaa muxamedin maxamed ahaa aladi maxamedkaasoo bacasahu llahu ilaahay uu soo diray tacaala shaanigu sareeya bilqur'aani qur-aanka ula soo diray qur-aan baa loo soo dhiibay liyakuuna si uu ahaado nebiga calayhi salaatu wasalaam mubashiran mid u bishaareeya linnaasi dadka qofkii raaca oo rumeeya janno iyo wanaag iyo barwaaqo nolol adduun mustaqbal wanaagsan iyo mustaqbal aakharo oo wanaagsan uu ugu bishaareeyo iyo wanadiiran midiga qofkii diida oo nebiga ku caasigorooba cadaabka alla iyo carada alla si uga digo oo qofku markuu nebiga rumeeyo sala allahu alayh wasalam iyo waxa layuu xagga ilaahay kala yimid diinkan uu ku toosnaado aakhare iyo adduunba noloshiisu way toosnaanaysaa wadaaciyan mid ugu yeera si ugu ahaado usoo diray ilallahi dadka mid ugu yeera ilallahi ilaa tawxiidillahi wa diinihi ilaahay dadka mid ugu yeera si uu ahaado baa loo soo diray biidnihi ilaahay idankiisana ugu yeera iyo wasiraajan fiinus muniiran ay wax iftiiminahaya mugdi baa jiray xilligii nebiga la soo saaray ka hor oo dadka jahliba iska ahaayeen ilaahay maysan aqoona ma caabudi jirin marka si dadka ilaahoodii abuuray uu inay caabudaan oo u rumeeyaan uu ugu sheego ayaa nebiga loo soo saaray asaga dhan ba wuxuu ahaa fiinus iyo iftiin qofku markuu meel mugdiyo socdo halis buu ku jiraa god buu cagta la geli karaa qodaxa buu cagta la geli karaa bahal baa afka kalaayuu la geli karaa laakiin markuu iftiin haysto oo kale waxa weeye wuu ka leexanaya meesha halistaa sidaasoo kale qofku intuusan muslimka ahayn intuusan diinta waxba ka aqoon waa qof mugdi ku socda camal wey wuxuu ku hadlahayo waxa saxda iyo wax qaladka ma kala yaqaan waxa uu sameynayo waxa saxda iyo wax qaladka ma kala yaqaan sidaa daraaddeed nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuuna baray oo ilaahay noogu soo diray saxdii waxaan ku hadli lahayn wixii saxda ahayo wixii qaladka na kala barasaan saxda uga hadalno qaladkana kaga fogaano waxaan samayn lahayn wixii ficnayo waxaan ficnayn buna kala baraya marka isaga dhanba fiinus iyo layr iyo iftiin waxaa loogu sheegayaa waxba qofka u kala baxayo wanaagii iyo khayrkii iyo wixii aan wanaag ahayn buu kala arkaya wey wa mubashiran isagoo u bishaareynaya lilmu'miniina mu'miniinta ilaahay uu soo diray oo ilahay wuxuu la soo diray inuu mu'miniinta u bishaareeyo wuxuuna ugu bishaareynaya biana lahum mu'miniintu inay leeyihiin oo ay usugnaadeen minallah ilahay xaggiisa fadlan dheeraadsiin fadligaasu kabiira weyn qofku mar hadduu muumin yahay salaada tukado ilaahay ka cabsoo caqliyadiisu ay hagaagsan tahay waxa weyn buu ilahay agtiisa ku leeyahay qiimo weyn baa ilahay qofka mu'minka agtiisa ugu fadhiyaa sala allahu allahu naxariisto tacaala shaanu sareeya ilahay caleyhi cala nabiy nebiga korkiisa wacala aali ehelkiisii allah u naxariistay wasaxbi asxaabtiisa wataabiciin iyo kuwii raacay taabiciinta asxaabta kuwii raacay oo la joogay oo la kulmay yooman duul dad tabicahum intaas kamida lasoo sheegay raacay biixsaanin wanaajin camalka la wanaajiyo oo shay sharciga waafaqsan lagu wanaajiyana ku raacay
ilaa yawmi ddiini ilaa qurbi yawmi ddiini ilaa abaalmarinta maalinteeda laga gaaro dhawaanshaheeda. qiyaamuhu markuu dhacayo wax mu'mina ma joogaan bale, laakin ku dhawaad intaas dadka khayrka waa soconayaan ba. wabacdu intaas kadib bisinki iyo xamdigi iyo salli gadaasheed fahaa baraarug huwa kitaabkaanu kitaab tajwiid, kitaabka la yidhaahdo almulakhasu almufiid weeye, waa midkii lasoo saafigareeyey almufiidu ee faa'iideynayay wax weyn buu qofka ufaa'iideynaya oo fii cilmi tajwiid ku saabsan. kitaabka almulakhasu almufiid fii cilmi tajwiid la yidhaahdo yakruju wuxuu usoo baxahayaa ila alqaari qofkii qur'aanka akrinayay qaariga alkariimi sharafta lahaa bacda an naala markuu helay oo uu gaaray kadib qisban qayb, qisbigaasoo waafiran dhamaystiran oo min alcinaayati ahmiyad ah, min alcinaayati tixgelin iyo muhiimnimo ah fii sharxi axkaami tajwiidi, axkaamta tajwiidka sharxideedana uu ka gaaray ama uu ka helay biusluubin hab na uu ku sharxo, usluubkaasoo sahlin fudud maysuurin ee la sahlay bu. wuxuu leeyahay qofka qur'aanka akriya oo muslimka ah waxa usoo baxay oo aan u keenay buu sheikhu le usoo qoray kitaab aad u caja badan oo almulakhas la yidhaahdo. kitaabkaas wuxuu yidhi in badan wuxuu ka hadli doonaa oo sharxi doonaa tajwiidka xugmadiisa, oo tajwiidka macnihiisa qur-aanka oo si hagaagsan loo akriyo, weliba wadada uu ku sharxayana waxay tahay wado fudud oo sahlan, oo fii su-aalin su-aal dhexdiisa ahaaday isweydiin iyo wajawaabin jawaab. kitaabkan nidaamka uu qoran yahay waxa weeye isweydiin iyo ka jawaabid. wuxuu leeyahay ma huwa tajwiid, maxaa tajwiid la yidhahda, su-aashaasu keenaya markaasuu ka jawaabaya. ma axkaamuhu, ma xukmuhu, xukunkiisu muxuu yahay, nuunta reeban see loogu dhawaaqaya, sifaatku waa maxay, makhaaristiisu waa meeqa, xaraf kasta xagee kasoo baxa. su-aashaasi jawaabtaas oo nidaamyada noocaas kitaabta u qoran haddana ay ahmiyad gaarsii leeyihin buu kitaabka socdaal ku leeyahay. fii su-aalin isweydiin iyo jawaabin jawaab dhexeeda ayuu ahaaday, iyo wa tamaariina laylisiyo, tamaariintaasoo maxluulatin la xalilahayo oo la furfurahayo, iyo ukra laylisyo kaloo madluubin la rabo xalluha xalilideeda iyo la furfurideeda in laga jawaabo min alqaari qofka akrinayo kitaabka laga doonayo. kitaabkan wuxuu samayn doonaa markii masala uu baab ka hadlo, nidaamka uu ka hadlay su-aali jawaab buu noqon doonaa, lakin markuu dhameeyo kadib buu layliskuu sameynaya. layliskaasoo laba qaybood ka kooban, mid asagaa ka jawaabaya, midna wuxuu keliya aadu ka jawaab, si maskaxdaada ay unoqoto maskax furfuran wax fahantay. maxluulatin waa laylisya la xalilayo oo la furfurayo o laga jawaabayo, iyo ukra oo madluubin la rabo xalluha min alqaari qofka la aadu ka jawaab. wakadalika sidaas oo kale kitaabkan wuxuu wataa tartiimu laayaati, aayadihii la namarayntoodii alqur'aaniyati ee qur-aanka loo nisbeeyey. aayadaha qur-aanka markuu aayad qur-aan sheego nambarkeeda ayuu sheegaya, iyo bayaanu suwariha, aayadaha suurooyinkeeda lacadaynteeda iyo suuradii ku jirtayna uu ku sheegaya, iyo nambarka aayaddu ay tahay. iyo wataxqiiqu laxaadiis, axaadiistii la hubintoodii, axaadiiskaasu annabawiyati nabiga loo nisbeeyey sala allahu alay slam. xadiis hadduu sheegana xadiiskaas taxqiiq buu ku sameynaya wixii sharaxaada u baahan yahay, iyo masal cidda warisay oo kale. iyo wal axkaami xugumyada lacadayntoodii iyo washawaahidi daliilyaalka, xugumada uu ku cadaynaya bule kitaabkan wixii daliila. masala wuxuu kudhihi doonaa kale markuu xugum sheego qaado daliilka, kitaabka liyaa tuxfat latfaal saasuu ku qoray. ibnuljazari kitaabka jazariyada saasuu ku qoray, daliilkeeda halkaasu kaaga sheegaya. wa tarjamaatun, tarjamooyinna wuu sheegaya, tarjamaadkaasoo mukhtasaratun lasoo gaabshay, tarjamaadkaasoo liman duul usugnaadeen kaana lahum uu usugnaaday mankaasba qasabu sabqi horeynteedi iyo qaalib ahaansheedii, fi ta'liifi alifida dhexeedana ay ugu sugnaatay fi hada ka dhexaysa lagu alifo alcilmi ee cilmiga ah. wuxuu ku leeyahay waxaan kaloo kitaabka insha allahu tacaala aad ku arki doontaa dadkii culumada ahaa oo naga horreeyey oo cilmiga tajwiidka ta'liifka ku sameeyey oo soo qoray oo horeyntaas fadliga ah qasab bimacnaa galabaha way helay. dadkaasna xoogaa tarjamaha u sameeya. tarjamada waxaa la yihahdaa marki la yihahda tarjamatu fulan waxaa looga jeedaa atafsir ama dikru siirati shaksi, qofka dhaqankiisi oo laga sheekeeyo akhlaaqdiisii iyo meeshuu ku dhashay iyo meeshuu ku bartay baa tarjama liya. xoogaa tarjamahan usamayn doona oo gaagaaban liman usugnaatay tarjamaadkaasu kaana lahum uu sugnaaday mankaba qasabu sabqi horeynta haalib ahaansheedi, oo waxay nooga dadkaasu nooga raayeen buu leeyahay inay naga horreeyeen. fi taalif qof kastoo kaa horreeyey oo mu'min aha waa kaa fiicanya, waayo nabigii buu kaaga dhawaa alayhi salatu wasalaam adoon muslim ahay muslim aha. fi taalifi alifaada dhexeedana ugu sugnaaday fi hada ka dhexdiisa lagu alif alcilmi cilmiga. dadkii nooga hormaray
إن أي كل لسانه كقران علميا علم تجويدك أيضا الترجمة وحنا شيء دونوي هو من دول كم أحدث كاسو حفظوا نوصوا حفظين لنا أنا ونو إلهيين كرك نوصوا قبتين كتاب الله إلهي كتاب تعالى شأنه سرية على الوجه سيدنا نوصوا حفظين المضلول إلى الربي سيدي الربي بس نوصوا حفظين إلا ضد الدين كان سوى درسي ونوصوا حفظين وقت بدن كسو بحشي جهد بدن كو بحشي فكاسو إليه هاي وكشا كين دون غير كمل وهذا الكتاب كتاب كان ثمرة خبرة قل أغانشو يحب أغانلمو مريه كدشوي خبرة سولي يسقناتي أنا في خدمة القرآن كي لو أديجي سي لو خدمين سي القرآن الكريم شرفت لها يو التجويد لو خدمين سي لو أديجي كذا مدة لو أديجي مدة طويلة دير مدة تزيد كبدا على 40 عاما أو سنة في مصر بحدي سنة حالاتي مدة والمدينة ايه ما وضع هذا كتاب كان مركز وحول له شيخه عن قراءة أو ملخص كاه وكتاب انفر بدن أو أفرطن سنة كبدن عن قرآن كل حجري ذاتك برايي تجويدك خفرد وين يحب يعلمه عن هالكاسكيه لي مريك صار شيء يقول الكتاب ومصر يا مدينة المنورة بانكو برايي ذاتك وقد كان لي وحي يسقنا لي شيخ الشرف والتقديم وإنجاز هذا العمل عمل كان شقدان المبارك بركيسن قوينتيدا يسو قدبينتيدا شرفتيدا على أكمل وجه إذا يود ما يستكرنا أنه كسو قدبيه يواتم صورة موقال مثل وتامسن ولله الحمد لله يقوم ماتن أرنتا أولو يري إلهي با مهات كلها إنان سو قدبيه شقدان بركيسن عمل كان أو سو قويه شرفتيدا إلهي بأيسي إلهي يقوم ماتن كيف لا سيدابو سنة سيدابو هانين كيف لا يكون الأمر كما ذكر أرنكو سيدابو سيساسو هانين والحال أنا أقضي أن كلك الله يدي كتاب كان في رياض مسجد رسول الله إلهي الرسول كيسا مسجد كيسا بيريسا خوضين كيسا واستنشق وشو كسا دارسي كتابكو عابرا عرفها هي ومن ذكر أصحاب رسول الله رسولك إلهي أصحابتي حصوص شدادية صلى رضوان الله عليهم أجمعين صلى الله على نبينا وعليه وسلم حيث ميلنا أي كسا دارسي كانوا هايين يقرؤون كواخري القرآن غضا متك عصب حالي ضريا متك عصب حالي في هذا كان يحيث المسجد المبارك البركي أول مدرسة ميل واحد لو أقريه يديه الرسالة القرآن الكريم وقال لي كتاب كأنه كتاب قيمنا بضن يهي أنا جينا أرنتها السلف وين يوسف وانتهي أرن لقى شكين كلامها هم بقول محيي الكتاب كان ما كان قرأي ماشي أنا أنكو قرأي وحويه بقول لي هاي مسجد كان لي عليه الصلاة والسلام خوضي في روضة ليش النبي جابر عليه الصلاة والسلام الكتاب كانوا كسر دار سبع عرف سيد اللي يدب يا كود جرا وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام حصلوا سووا بيئة ليش القرآن كو أخذين كذا السبع عصب ومركز سود دقي الدرسين ظهر رسالة القرآن كله برا يدك ليش عشان كتاب كو ألفي بالله شو مركز إنه كتاب عجيب النقطة أنا سأفهم كيف شكل ملام بي مركز ليش أقول لي هاي كيف لا يكون الأمر كما ذكر أرنكو سيدان صوشة سيبو سؤال نقونين وإن شرف كويس عمل كان بركيسان والحال أنا أقول أغضو به أن كل جرمادي تشري كتابك وحن كل اللي يشري في الرياض بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على مسجد سروضين كيسا واستنسق ساسو أنا هذا نسخة عن قرأ هاي تقرأ واستنسق مركي اللي معنوه نقوليها
wastanshaqa wuxuu ku sandaarsaday bimacnaa wuxuu urursaday cabiiran udug cabiirka waxa la udug lasku dardaray caabiran carfaya waastanshiqu baa nusqooyinka qaar qur-aan kutubaha qaarkood marka waxay noqonaysaa waastanshiqu waxaan ku sandaarsanayay oo carcarsanayay cabiiran udug caabiran udgahya oo min dikri asxaabi rasuulilah rasuulka ilahi asxaabtiisa xasuusteeda sala allahu alay salam ridwanullahi calayhim macna xaysu meel ayaanan ka carafsanayay bu kaanuu ay ahaayeen yaqra'uuna kuwa akriya alqur'aana meeshay ku akrin jireen qaban midkii cusub xaaliya qur-aanku bariyan cusub bariyan iyo qaban waa sumacne fi hada ka dhexis almasjid almubaarak la barakeeyey awali madrasatin meel waxa lagu akriyo lil qur'aani qur-aanka usugnaatay kii ugu horreeyay ahaado meeshii asxaabta joogi jirtay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu qur-aan ku beri jiray oo waxyu kusoo degi jiray meeshaasaanba kitaabka ku qoray buu leeyahay marka inuu kitaab sharaf uu noqdo iyo shaki markaas ma imaanayo aad buu sharaf baday allah nagu anfaco wainani anigu iktasartu waxaan kusoo gaabsaday fi hada ka dhexis alkitaabi kitaabka calaa maama ladii kii warada usoo arooray lixafsin raawiga xafsaha can caasim uga soo arooray min dariiqi shaadiliyada dariiqeeda xaggeeda uga soo arooray sida la ogsoon yahay waxaa jirta waxa la yidhaahdo alqiraa'aat oo qur-aanka uu ku socdo qiraa'aadkaas 7 weeye markii mutawaatir la yidhaahdo 10na waa la gaarsiiyey aduu 10 qiraa'aad jirta 10kaas 7 quraa iyo 3 oo 10ka dhamaystiraysa ayaa jirta 10kaas quraada waxa weeye waxaa kamid a caasim waxaa ugu horeeya naafic waxaa ku xiga ibnu kathir waxaa ku xiga abu camr albasri waxaa ku xiga ibnu camir ashami waxaa ku xiga caasim xamza kisai 7daas waxaa la yihahda alqura salax 7daas mid kastoo kamid a waxa wax kasoo wariyay 2 raawi buu leeyahay caasim hadda meesha unagu qoray labadiisa raawi waxay kala yihiin shucba iyo xafsa marka waxay kala yihiin quraa oo kuwii qur-aanka akrinaya qaariyaalkii iyo ruwaad dadkii kasoo guuriyey oo kasoo wariyey marka wuxuu leeyahay sheiku kitaabkan horta kitaabka tajwiidka ama kan haada mid kala haadee axkaamta uu ka hadlahayo waa axkaam ku saabsan qur-aanka sidii qur-aanka loo akrin lahaa loo sixi lahaa loo hagaajin lahaa marka way ka dhaxaysaa quraada 10ka kaa doonta u akriya deer qiradaa doonta qur-aanka ku akri tajwiidkan axkaamtiis waa ka dhexeeya laakin markii masel qof kitaab qorahayo aayadda qur-aanka markuu masel miisaanhaan usoo qaadanayo wuxuu u baahan yahay qiro qiraa'aadka kamid ah inuu ku dul socdo marka wuxuu leeyahay weliba qiradaas uu ku dul socdo laftirkeeda raawiyaashii ka horey raawi kamid a hadda wuxuu leeyahay kitaabkan oo mulakhaska ah markaan miisaalo iyo tusaalooyin qur-aanka kasoo qaadanayo waxaan ku socon doonaa qirada imaamu caasim oo weliba biriwaayati xafsa hadda kutubaha masaaxiifta intooda badan waxay ku qoran yihiin hadda riwaayada xafsa soomaalida qaariga ay akriyaan waa abu camr albasri raawigiisuna waa ay akriyaan inta badan waa duuri suusi buu leeyahy 2 raawi duuri akriyaan marka way jiraan kitaabaha camraha la yidhahdo abu camarka kaliisa ku socda way jiraan laakiin inta badan hadda masaaxiifta dunida u badan waxa weeye caasim biqiraa'ati caasim biriwaayati xafsa can caasim xafsana waa raawigiisii marka waxaa jira waxa la yihahda qira'a iyo riwaaya iyo dariiq qira'a garatay waa quraada 10ka ama 7da oo caasim kamid yahay riwaayana garatay oo waa ruwaada nin kastoo kamid a raggi wax ka wariyay xafsa oo kale dariiqadana waxa weeye dariiqatu suqra iyo dariiqatu lkubra baa kala jirta imaamu shaatiri kitaabkiisa waliyullahi shaatiri oo leeyahay shaatiriyada 7da qira ayay ka hadashaa inta wada gasha markaas waxa la yihahda dariiqatu shaatiriyatu suqra dariiqatu waxaa jirta annashri oo ayadana ilaa yay dariiqatu lkubra baa leeyahay marka wuxuu leeyahay dariiqa kitaabkan waxaan ku kaabsan doonaa si hada kitaab calaamaa warada wixii usoo arooray lixafsin ama caasim kaga soo arooray oo raawiga xafsa caasim soo koriyay min dariiqa shaadiriya weliba dariiqada shaadiriyada nashriga wuu kasii dariiqa fara badan yahay wuu kasii wadooyinkiisa kasii fara badan waqad carabtu waxaan u bandhigay shiiku hadal camala shaqadan kitaabka markaan qoray camalkaanu almutawaadicaya hooseeya camalkaan hooseeya uu isxaqiraya dadka wan wanaagsan waxa lagu yaqaanaa camalkooda ma arkaan shaqo kastoo wanaagsan oo ay qabtaan waxay yidhahdaan waa wax iska liita camalkan almutawaadica hoose waxaan u bandhigay biyo calaa ikhwatin walaalo ikhwadaasoo kiraamin sharaf leh oo minman lahum kamida dadka ay usugnaatay yadun dulaa gacan dheer macnaha aad iiga saaciday fi hada kan dhexdiisa alcilmi ee cilmiga faxadaytu waxaan ku dheefaystay oo ku guulaystay buu shiiku binusxihim taladoodii iyo nasiixadoodii iyo irshaadihim hanuunintoodii waaqusu waxaan si gaar u sheegaya waaqusu waxaan ku gaar yeelaya minhum raggaas bidikri sheegitaanka alakh alkariim walaalka sharafta alfaadil ee fadliga lahaa
الشيخ إبراهيم الأخضر القيم إبراهيم الأخضر القيم بيجري إمام وإمام كان سبيل المسجد النبوي الشريف ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وما هي له إمام بكية وفضيلة الشيخ سيد علي عبد المجيد وحل الشيخ إمام كها موجه للقراءات القراءوين يتكي جهين جريها قراءوين كل الجهين يقرأ أساسه يساوي في منطقة المدينة المنورة التعليمية وليها قبل كاس وليها منطقة المدينة المنورة التعليمية وأسنوي حقيقة هي نيكا كل شيء قراءات أو جلالة أيها سوق صار سنة وفضيلة الشيخ عبد الرافع رضوان المدرس أخيها كها بكلية القرآن كلية القرآن الكريم إلا جامعة وقتها كلية كليين وواحد جود قرآن أو جود قال نعيش كده بدل بوحو كان مدرس بكلية القرآن الكريم أو بالجامعة الإسلامية قصوا جنب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أيضا صالح وفضيلة الشيخ أحمد حسن دياب والأستاذ محمود عبد الفتاح قادري المدرسين أيضا كآخرين شيئين بمدارس أبي بن كعب مدرسين أبي بن كعب أو لتحفيظ القرآن كالوحفظ الكريم شرفت له وبالمدينة المنورة مدينة فيها وكان على رأس الجميع لما وحمد وهابيري شيخنا شيخ العلامة علم بدنها فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الفتاح القاضي عبد الفتاح ابن عبد الغني القاضي ونيك من وين وكتبه حتى شاطبيه شرح بكل كتاب اللي الوافي وشرحي شرح سياس كلا وشيخ وين ومصري أصله اللي كانت تفضل نوع حسان صليبي بوضع تقريب أمان إنه إدتشيو لهذا الكتاب كان تقريب بوسري هذا قيب تضمن يوتيوب إن شاء الله فصل كم سكين فجزاهم الله إلهها وجزي وقال المريض ضمانته جميعا ضمانته خير الله كجزي وكل من قف كتبه وقدم إليه إيش بديه اقتراحا سوتشيرين نافعا أو احتر له خير للجزاء أما المريض كان هو نسأل الله قال المريض فقاس علماء يقف الله يقف إيش سوتشيرين بأهرن وحكتابك يعني من عفية إلهها قال المريض ولو دعي يقف قد وح خيرك وابكون وضكوش أو وجعل الله كي القرآن كشفيعنا مثل نور شفيع لنا شفيعا لنا من نور شفيعة ويرجعنا يوم القاهل كل كيسا يا أمر كلا توكلنا آمين ويقول وتحدثنا وأقول وحن ليه تحدثنا أني ومرك كشاكين ليه بنعمة الله إله النعمة تعالى شنشري نعمين إلهي ونعمة مر نقف النعمة إلهي وبلغين وشيء وفي عنك أكون كيوريو يو سلوين أنكود لكن إلهي النعمة كشاكين ويجتا ويقول أنا أرنت الصوصع تكوله نعمة إلهي إذا لكشاكي أنا كيفيديو كليابي استوس أنكود فقد تقرر واحد سنادي بالتدريس وهذا الكتاب كان لأخرين كيسة في مراكز تحفيظ القرآن حرمها القرآن كله حفظه هو أخيه وفي المملكة الأردنية الهاشمية مملكة بقرطوية الأردنية الهاشمية وهي مراكز حرمها القرآن كله حفظ كتاب كان الله أخيه كما سيد أنه كتاب كان يدرس الله أخيه في بعض المراكز الإسلامية حرمها إسلام كقار كمدة في أمريكا خصوصا حرمها إسلام كمريكا فيها لقيبة كمدة والو بدرسية دي شيخنا وحي الله إلهي بان نعمة سيد لي حتى لفظ كذا أخذنا أن أدونك إنت سبق إلا قد يسنهي وعناه وخير أسن أسيه إلي شيخة أنا قلنا إلهي بركي سامسي أنا الوافع كتابك وقد ترجمه وحال لو ترجمه بكتاب كان هذا عربي وكوكريني إلى اللغة الأردية اللغة اللي أردوغة للانتفاع به الله انتفاعه وفي الدول الدوليين الله انتفاعه الإسلامية الإسلام كأشرقية برقة دولها برقة كلها الله إسلاميين واللغة الأردوغة تاي marka ay u intifaacaan oo luqada carabiga aan aqoon luqada urduga loo turjumay bulay sida misal Pakistan oo kala Pakistan iyo ma xawlaha iyo waxa ay xiriirayaan kama sidii anoo kitaabkan turjuma loogu fasiray ila luqada ingiliisiga luqada ingiliisiga iyo turkiyada luqada turkiga iyo farsiyada luqada iraanka iyo ruusiyada luqada ruushka walillahi alhamdu ilahi bakum hasan wa tatmiman ibid ya dhamaystirid awgeed lil fa'idati saan u dhamaystirid kitaabkii qoray meelo badan oo lagu akhriyay فإذا سأونا ما يسترنته أنا وانا أدبحيه وقد وفقني الله إلهي وحي واسجه تعالى عشان سريه لتسجيل محتويات هذا الكتاب كان وحي الله أكوينيه إنا نضوبه على شريط الكاسيت عجل كاسيتك يو شرائد على شرائد الكاسيت عجل لك كاسيتك يو شرائد الفيديو عجل الفيديو مركز مركز كاسيت أنا قاعد نقولنا عجل كفيديو وكاسيت أنا لكن بعدما كان شرائط الفيديو وكقري وحن لنا شرائط الكاسيت وحو كلا جيدا عجل كراديها شرائط الفيديو وانا وحو كلا جيدا تلفزيون كأما فيديو عجل كيس انت وحو لي كتاب كان واقود يقول لي كالدروس أسوأ الدروس أو كلا في تسجيل كسان درس أنا قريب وتسجيل كاس مركو شيخو سمي أو دوبي وشو كودا تسجيلا تهليد أوجد ما أدوبي ويري يو تيسيرا فوين
للراغبين ضدك جعل أنفه وين يسهل في تعلم هذا العلم علم كان لبرشيدة المهم كان وخدمة وأذيج للقرآن القرآن كان وأذيجه القرآن كان سؤال مجيد أشرف لها لو أهلي القرآن كذلك ليه الكوابر طوي إلى خير كل جزء الشيخ ما هو كتاب كنا قري وهذنا ضوبة والهلا عجليسة هذا كتاب كان كورتي صح قرن دار السلام طبعة والنشر واحد كيلي كتاب اللي هي عجلة ليه هذا ماشى الضنباء روحه كله أطلب النسخة كر هذه ويربق الضنباء ماشى جربت كشيء نسخة مصنوعة من كتاب المهم سيد في الجديد أفر عتل أو كاسيت كا يلي على صوتية صوت المؤلف ولي بعد كشيخة هذا معنا الله بس عن كان سكوبها يوي مركب اللي هي كتابك عجلات تفكير هذه وهلا إن شاء الله كما أضفت سيدا أن أقول ضريب إلى هذه طلعة الجديدة تدبعد العصب التي تسود بين يديك كهرتها اللي هذه الآن هذا جميع مواضع المد اللازم مثل المد اللازم الكلمي المثقل وفي القرآن الكريم انت ميلاد ومثل في القرآن الكريم له وسيرش إلا بغل ميلاد عمله كده حيث كان مركة غير كاملة ميلان قدام الترمين في الطبعات السابقة طبعوين كهري هذا كتاب كينان هذا طبعات عليه نسخة هايسته وطبعات هذا حلي كان طبعات بدنا كده طبعات التمراد وي إلا طبعات الذي التمراد هذا واجب ساوي وأكون ضريبي مثل سواء كنا ما يستري نظرا أنا أقول إيه اللي ما لها واحد أصولنا من الكلاد ومن أهمية المهمة تقديم وأدية الفضائل بالقرآن القرآن كتفضل بها والباحث مثل كبارية عن معرفة القرآن كبرشيدي كما تسلان أقول ضريبي مطرح تحفة الأطفال كتاب كذا تحفة الأطفال وكتاب تجويد وشعره الجمزوري شيخ يونس بن الشيخ الجمزوري شيخ صبري يومة الجزرية للإمام ابن الجزري شيخ وينا واللي في فارس هذا الميدان ما شاء الله كما حكى ابن الجزري كتاب كولها أسوأ متن كتاب حق دم كوو قرية تحفة الأطفال كذا متن يسدبوا كذا قرية ما حد عي وأنا ضري اللي ما بينهما لبضان متن واحد اللي ما لهما لبضان متن واحد أصلا ومن أهمية المهمة تجعل قرية القارئ قصة القرآن كأخرنا يستوعب نظام ما يستري جميع موضوعات فن التجويد فن التجويد كوحيالها وكهلها يضمنتد نظام ما يستري إذا وفقه الله إليه الضوء في حفظهما حفظات دون أو كتابك شرحيسا لحديثا waxaa ku arki doonta intuu kitaab ka hadlaayo markuu mas'ala ka soo leexulay ilayka qaado ad-dalil min at-tuhfa kaas daldalaya hadana min al-jazariya marka bacdana kitaabka dhixis uu ku soo qaatay leesha dambana ayagu rasmi ah ay ku qoriyay marka xafid buu ku leeyahay wax badan bad ka faa'iideysaa intaas marka qowseenka kama adaftu waa isaga bil ku xiray ilaa xifdiina sidoo kale qowsa soo gashay marka intaas wuxuu leeyahay idaafa min an-nash qofkii kitaabkan dadkii faafinay waa inta ku soo daray وسجل وحن ضوبة يا أبي الشيخ الشكري عليك مع النقية وتقديري قدرين إذا لمكتبة الطيبة مكتب كليا طيبة مكتبة كليا طيبة وبالجوار الحرم النبوي الشريف حرم النبي عليه الصلاة والسلام وشرفت درس له بالمدينة المنورة كتعالى مكتبة الكوية له أو طيبة ليا أو مدينة كوية لمتاعي أكتسة كم هالعلم يا أبي الشيخ التي مكتبة هذا الكتاب كان إليه معناها كفلته في المملكة العربية السعودية مملكة بقرطية العربية والسعودية كما يسجل السلام وضوء ويشكري مع النقية لدار السلام للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة معناها كتالوي تلك بقول إلى اللباتنات شارع الأزهر لقيامها ويستعيد بنشر هذا الكتاب كتاب كان لفافين تسعيد تكتي في بقية الدول العالم الإسلامي دولها عالم كسان متصارتي ويقول لي كتاب كان لبطلع عوض بصنيسي طبعا واحد كتالله مكة المدينة كتالله السعودية العربية أيضا تاسجاسي طبعا waxay ku taala Masar waa dabcatul Dar es Salaam wada kitaabkan mid soo dalay adduunka intiisa kale gaarsiiyay wallahi asal ilaahi kaliya waxa weydiisanaya in jaaziyo inuu ku amal mariyo khayran khayr kullu man qof kulliis nadar eega fi hada kitaabkan bi'ayn ar-ridha bil faalahan shaku eega waa shadan igu hanuuniya ila xasan midka u fiican khidmat kitaabi ilaahi kitaabillahi ilaahi kitaabkiisa adeegidisa sida ugu fiican oo ilaaha halkaas fiican kama sidii asaluhu anu weydiinaysanayo ilaahi ta'ala shan sariye من فضله إحسان كيسي وكريم ديبسة أن يجعل إنه كذلك هذا كان العمل شغدا مقبولا من الله قبل عنده إلى أكتسة والنافعا من ذو حطرة ومفيدا أفائدية للراقبين ذاتك ضلبية في تعلم أحكام التجديد كبرشاوة محايا لإنه إلهي نعم المولى بقر يسيد أساؤون أكسا ونعم المجيب أحد وحجيون أساؤون أكسا وصلي ونحرس اللهم إلهي وعلى سيدنا بقر كني ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المؤلف قالوا وركز وحي المؤلف في كتابنا اللي في خادم القرآن الكريم قرآن كشرفت الأخي المنجري والعلم محمد أحمد معبد هو مدرس للقرآن الكريم
quraanka ka akhrin jiray watajiid bilmajlis nabawi shariif intaas waxaa kusoo dhamaaday muqadimadii intaa yartaa waa in yar oo ku saabsan sheekhi cabdilfataax alqaadi oo sheekh weynaha oo kitaabkan xoogaa taqriid ammaan buu sameeyey bismillahi raxmaan raxiim taqriiduna hada midkaanu taqriidun kitaab ammaan weeye taqriidkaasoo lifadiilati sheekh cabdilfataax alqaadi u sugnaaday sheikhan ashaaficiyi madhaba xagga madhabka shaafici xagga tarbiyadana waa azhari xagga dariiqadana waxa weye naqshbadi adamanhuriy bedlada beledkiisuna waa damanhuri masr bay ku taalla alxamdu lilah ilahay baa mahad iskale buu yidhi xaqa xamdigii uu mutay baa ilahay ku mahadanaya xamdigii u waajibay wasalaatu naxariisi wasalaamu nabadgelyo calaa sayidi khalqihi ilahay makhluuqiisa boqorkiisa korkooda ahaado waxa ilahay abuura kii ugu sarreeyey iyo wasafwati rusulihi ilahay rusushiisa kii saafida u ahaa uu saafisanaa iyo calaa man qof nahaja raacay oo qaaday nahjahu nabiga wadadiisii qaaday sala allahu alay slam oo watarasama fiirfiiriyey oo xasuustay asarahu nabiga raadkiisa oo fakaana kamid noqday min afdali jundihi nabiga ciidankiisa kan ugu fadli badan ugu wanaagsan wey intii raacdo rumaysayna ilahay naxariisii nabadgelyo korkooda ha yeelo wabacdi intaa kadib faqad tawafara waxaa dhamaystirmay calaa ta'liifi hada alkitaabi kitaabkan la qoridiisa iyo la alifaadiisa almusamaa lagu magacaabo almulakhas almufiid fi cilmi tajwiid waladunaa waladkeenii albaaru ee baariga ahaa asaalixu ee wanaagsanaa saalix ahaa annabiilu ee wanaagsanaa nabiilka waxaa la yihahdaa caqli في هذا الكتاب كان الألفيديس المسمى له مقعب الملخص المفيد في علم التجويد ولدنا ولد كان البار بارجها وحول لي كتاب كان وحاسنا ما يستر أقري ولد كان بارجها وحبو بري أردديس وكملها قفك وحبرت ولد كايوية إلا الروح دي سبات كريسي الصالح وانا السنة الصالح النبيل عقل لها النبي شرف لها المخلص ولبا نظيف كوها أو خالص اللي دين كسيد عنما diinkiisa ugu caansanaya alxafiy ee baariga u ahaa bikitaabi rabbigiis kitaabkiisa xafiga waxa la almubaaliq fi likram waa qofka ku xeel dheera karaameynta macnaha kitaabka ilaahay aad baariga u ahaa ku caansan jiray akrin jiray beri jiray dadka alustaad baraha ahaa asheekh maxamed axmed macbad almudaris ka akrin jiray bimadrasati ubay ibni kacb litaxfiid alqur'aan alkariim madrasadaas magacaa leh oo qur-aanka kariimka lagu xafido oo bilmadinati lmunawara ku taala وقد جمع وحو سؤال الرشيد حفظه الله إليها حفظه تعالى قفته بركه نولا في هذا الكتاب كان وحو سؤال الرشيد من علم التجويد علم التجويد في حقه أهم قواعده قاعدين كذا لما تسائلش يسميدي أمه سنيد يواجل فوائدي سائلين كنت وينيد وإن كتب التجويد بكتب التجويد كهذا شيء فيها حلقان يقضيها واحد قصها العد الترى ولا ما ترين كروي تربديهم بيد ولا يأتيكم ولا إيمان كرا عليها كذا الحصر الترى قبل لما تركوا بكره ما بين موجز وهي كتب تاس واحد سوتشتا ما بين موجز من لقابيه ومسهل من هذا الديريه وربضا ومختصر من كامل يوم مطول كل ديريه يوم بين منصور من هذا العالي والنصريه يوم منظوم من نظم وقضيه بيد الله كان ايضا يتسوي كتب تجيب كان ابو فربانته حلقان لكن كتاب كان ديراد كتاب له بيد ان هذا الكتاب لكن كتاب كان يفضلها جميعا لما وقد ديرات فيها وغفل اللي بنيها كلها dhammaanteed wuxuu kaga sarreeyaa bisuhuulati cibaaratihi weedihiisa iyo hadalkiisa fudaydkiisa cibaarada iyo hadalku adeegsanaya hadal sahlan ah iyo waa caduubati taraakiibtiisa macaankeeda tarkiibka waxa weye jumladaha hadal ka kooban yahay waa wax macaan buyi iyo wijaazihi gaabintiisa fii mawdicin meesha uu gaabinayo yaxsulu fiihi uu ku wanaagsan yahay alijaazu gaabintu iyo waishaabuhu hadal dheerayntiisa fii mawdicin meesha uu hadalka ku badinayo yajmal uu qurxoon yahay في موضع فريحة الإسلام ماشي هذا البدن وبعنا هذا الكوا وبدن ياوي ماشي هذا يوم بعنا أو يرانيا ومما زادني عجالة واحد يكر لي واحد كم يبي لياب هذا الكتاب الله يابو استعماله كل منتسى على كثير إن بدن وكلنا يو ومن التطبيقات شغل لنا شغل بشرية مركز آيات دي يعني نظام شيء لو بدك نهيبه هذا تطبيق مسلم وكل فلنية وكل دول سنية يو تمرينات ليلسيال ليلسيال هو سنية وقد جعله وقد المؤلف كتاب في قري كتاب كان هذا التمرينات الليلسيال كان قسم من لبا قيبود قسما قيب يتولى هو أساق عيا لو ريقيا
oo u istaagay buu oo u weli noqday xal xalilidiisi ya xalintiisi iyo weli jaabata canhu inuu ka jawaabo waqisman qeymna yatruku wuxuu uga tegayaa buu liطaalibi qofkii ardayga ah wuxuu u daynayaa xallahu inuu furfuro liyatamarana si uu ugu laynisimo الطالب قفكي قلبه وعلم أرضي جها على حللين كذا ومساحة كسقيسية يولي جابت عنه كجوابه وأرمي نوي ولا شك وحن شيء كثيرين أن هذه التمرينات اللي سيال كان تثبت إني سوى ألقى وعدة قاعدين كثير من الطالب قفك بالك على قلبي يسمي كسوسه إلا قلبي يسمي كشتقيسية مركا قاعدة سفع عم بفهم ياوي وتوضد إني سوى أسئلة حريرك وبينه وبين الطالب أرضي وبين الفن ودحي الذي كاسو يعني يوقف دايو بمعرفة تطبيقاته وحقوق فلنتيزة الدبوليديس إلا الدبولسية وحل الشيء هايو يقرانك برشاده يو حل تمريناته ليليسيالك سينو حل معناه يقول لي تمرينات كان قفك مالك كان waxay kala u yeelataa xiriir bay u yeelaysaa way asaga fanniga wala yafuutuna idaafi maayo fi hada almaqaam meeshan anna kula ina sheego bikuli fadli wa taqdir fadli kasta iyo waliba qadarid al-ustaad al-kabir macallinkii weyna mudiri madrasada abi ubay ibn ka'b madrasada اللي yiraahdo agaasimaha al-ibtidaiya dugsiga hoose wal dugsiga dhexe iyo saano dugsiga sare ayada inta ka kooban sheekh maxamed sadiq xasan al-mayman sheekhaas aad baan wuxuu ugu soo jeedinay amaan iyo taqdiirin maxaa dhacay huwa sabab ومك الصوت هو في هذا التأليف الفادان فكثيرا إن بدن ما عاد بدن ويحس كبورين شري المؤلف الشيخ كتاب تنقضي على الاستمرار المصيبة في الكتابة القرآن ويبين له عدين جري ما في هذا المؤلف كتاب كما حقصنا من الألفي ومن نفع واحترار لأبناء المسلمين ضدك المسلمين المهض هو حطريه وخاصة قارهان العاكسين يكون كل لقي على الدراسات القرآنية دراسين كقرآن وفي الختام قبل يضمنتي أسأل الله إلهي وحوي بسنة تعالى سنة أي عمر إنه عام يله بهذا الكتاب عن نفعي سنة عام كليه ملك تجرسيه ويعظم إنه لمالك الشيء غير عاجل أجريه ويجزيه إلهي إنه قابل مريه جزاء العام من الكوة عمل فلي أبال كرسي المخلصين إذا عدها وخالصي لخادم القرآن قالوا هو الكسو حيري خادم القرآن الكريم القرآن كان كي يأخذ لي والعلم عبد الفتاح القاضي فإيسو قسم القراءات قيت قراءاتك وكل يد قرآنك مدحنا بالجامعة الإسلامية في جامعة الإسلام بالمدينة المنورة مقعسية جمعة يهيد بحلقة قرى سيالة وتنكي ذي الحجة كون أفربول هدرنا كون أفربول وشدنا لما مرنا صدنا يلا كوسنا كهر وكو آدين تضبط نوفمبر كون سيال بغسدتك بلادية هل كان سبحانه ويك هذا درسي كولاد أيها الكاس موجودة ماضي وكملها كتاب كأني الملخص المفيد عن شريسة وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.